السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka tigida wariga toobna official fadlan channelka ayaa ku soo subscribe si ku soo gaar muuqaalada xiga. Muuqaalkan waxa kaga sheekeynaa wax loo yaqaan hal abuurnimo. qof waliba wuxuu doonayaa inuu noqdo qof hal abuur leh oo fikradiisu ay shaqeyso oo yani ka fikira yani waxyaabaha uu isleeyahay waxaan baadee adii nafsiyan ku anfacaya oo meel ku gaarsiin kara. sida loo noqdo hal abuurnimadu waa wada hadal socda oo la yeesho naftaada iyo adduunka. helitaanka dariiqooyin yar oo ka dhasha fikirka maskaxdaada waxay dhalin kartaa aragtiyo iyo hal abuurnimo ballaarinaysa himilooyinka ganacsigaaga. hal abuurnimadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah socodsiinta ganacsiga guuleysta, maadaama ay u saamaxayso fikradaha iyo hal abuurka cusub ee shirkadaadu ay hore u sii socoto. inkasta oo had iyo jeer ay adag tahay in waqti loo sameeyo hal abuurka marka loo eego isbeddelka adduunka iyo sida dhaqsiyaha badan ee wax walba isku beddelayaan xagga ganacsiga. talaabooyinka la taaban karo ayaa ka gacan geysan kara in hal abuurnimadu ay noqoto mid suurto gasho oo suurtooda. halka hoose ama muuqaalkan waxaa kaga sheekeynaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin ilaa iyo 4 qodob 5 qodob oo aan uga hadlayno sidee aan ku noqon karaa qof hal abuur leh. waxaad ku noqon kartaa inaad maskaxdaada ay shiilitaanka maskaxda waa aalad awood u leh kobcinta hal abuurka ganacsiga. waxaad u baahan tahay mar waliba inaad awood u yeelato inaad si saxan u fikirtid. mar waliba aad fikirto aad qorto wixii aad ku fikirtid si ay xusuus qorku ugu noqoto beri ka maalin aad ugu hormariso ganacsigaada. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad uga hortagto culeysyada ku soo wajihi kara. maskaxda waxay ku ogolaanaysaa inaad abuurto waxyaabo cusub oo badan oo aad samayso xiriiryo laga yaabo inaadan si kale u tixgelin oo markaas aadan ku fikirayninba aslan. ka soo qaad waxba kugu taagnaa inaad samaysid, laakiin wixii aad rabtay inaad samaysid sidii aad u mar lahayd qaabka aad u mar lahayd sifadii aad u fulin lahayd ma haysid. laakiin waxaas waaye wax niyadaada kugu taagan aad jeceshaa inaad samaysid. marka waxaas inay fulaan waxaad u baahan tahay inaad maskaxdaada aad shiisid oo aad la imaadid hal abuur iyo fikir aad ku dhaqangelinaysid in wixii adiga aad rabtid aad ku fulisid nidaamkii aad u mar lahayd, qaabka aad u mar lahayd iyo wixii aad ay suurtagal tahay inaad ku suurtagelisid. maskaxda waxay ku ogolaanaysaa inaad abuurto waxyaabo cusub oo badan oo aad samayso xiriiryadaas. waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad hesho habab cusub oo aad ku gaadho dadka adiga kugu xeeran sida macaamiishaada, ku xoojisa astaantaada iyo xalinta dhibaatooyinka. tixgeli inaad waqti go'an u samayso hal abuurka fikradahaada maskaxeed. qodobka labaad waa inaad tijaabooyin leedahay. tijaabadu waxay muhiim u tahay shirkad kasta ama mashruuc kasta, maadaama ay kor u qaadayso sahminta iyo daahfurka marka laga hadlayo shaki la'aan iyo mugdi la'aan. tani waxay qaadan kartaa qaabab badan sida inaad tijaabooyinka u samaysan yihiin qaab ah AB oo nidaam isugu xigxiga, iyadoo loo adeegsanayo xog lagu wargeliyo suuqgeynta iyo go'aamada ganacsiga ama isku dayga qaabab cusub oo xalinta dhibaatada. soo jiidashada ruux tijaabo ah waxay u ogolaanaysaa dabacsanaan iyo iswaafajin, taas oo furo u noqon karta guusha marka laga hadlayo caqabadaha. ganacsigaagu wuu fiicnaan doonaa markaad ku hogaamiso maskax furan oo tijaabadu hal abuur ay u leedahay. qodobka 3 waa inaad naftaada ku xeerisaa oo aad ku hareeraysaa dadka hal abuurka leh. ka soo dhaxbax baashaalka iyo baataalka oo la kulan dadka qiimaha ku leh bulshada dhexdeeda. hal abuurnimadu kama soo baxdo xoogaa caqli go'doon ah. taa beddelkeeda waxay ka timaadaa isdhexgalka, akhrinta, wada hadalka iyo doodaha. naftaada ku hareeraysii deegaan
iyo dad hal abuur leh waxay kor u qaadayaan hal abuurka ganacsigaaga. Tani waxay ku lug yeelan kartaa raadinta la taliyayaal, ku martiqaadida dadka waxtarka leh, iyo inaad qeexdid waxyaabaha aad ka dhex guuxayo inaad bulshada aad u qeexdid. Sidoo kale ka qaybgalka aqoon isweydaarsiga ama shirarka. Qodobka afraad ee ah inaad hal abuur noqotid waa inaad nasiino aad qaadatid. Qaadashada nasiinada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geedi socodka hal abuurka, kaas oo maskaxdaada siinaya fursad aad dib ugu soo ceshato tamartaada. Kullama aad daashid waa kullama ay yaraato habfikirkaaga. Mar waliba waxaa u baahan tahay inaad nasiino aad qaadatid oo tamartaada dib u soo ceshatid, maskaxiyan iyo caqli ahaan, jir ahaan inaad soo ceshatid. Qaadashada nasiinada waxay kaa caawin kartaa inaad ku laabato shaqada adigoo tamartaada dib u soo cusboonaysiiyey iyo adigoo aragti cusub la soo kordhay, taasoo kaa caawin kartaa inaad hesho xalal iyo fikrado cusub. Qodobka shanaad ee kaa caawinaya inaad noqoto qof hal abuur leh waa inaad noqotid qof maskaxdiisu ay furan tahay. Tani waxay kor u qaadaysaa hal abuurka, taasoo ku ogolaanaysa inaad maskaxdaada dhalaaliso. Waxaad kordhin kartaa awoodda aad u leedahay inaad ku abuurto fikrado cusub oo hal abuur leh. Qodobka lixaad, sheegidda sheekooyinka waxay kaa caawinayaan inaad hal abuur iyo fikrado cusub aad yeelato. Sheegidda sheekooyinka waa aaladda ugu dambaysa ee hal abuurka ganacsatada. Waa dhaqan cimri dheer leh, taas oo soo jireen ah. Ma ahan hawl aad ku dhammayn karto hal mar oo aad ku qaban karto waqti gaaban. Sheekadu way nooshahay, waxayna noqon kartaa mid adigu ay ka hadasha nafsadaada ka hadasha. Kullama aad bulshada ugu sheekayso fikradahaaga iyo waxyaabaha la habboon inay bulshada waxaan ay ka bedelaan ama wax ay ka qabtaan, waxay kaa caawin kartaa in ganacsigaaga uu la soo kordho fikrado cusub, bulshada dhexdeedana uu ku yeesho sumcad. Adiga shakhsiyan aad bulshada dhexdeeda aad ku yeelatid sumcad, waayo markaad bulshada ugu sheekaysid hal abuurkaaga iyo fikradahaaga ganacsiyeed, waxay ku aqoonsanayaan inaad tahay qof xushmad mudan oo la dhagaysto oo la qiimeeyo fikradihiisa iyo waxyaabaha uu ka hadlo. Waxay kaa caawinaysaa inaad mar kasii dambeyso hal abuur iyo fikrado cusub aad yeelato. Halahaani waxay ahaayeen qodobo gaaban aan ugu hadlaynay sidaad ku noqon lahayd qof hal abuur leh. Waxaan rajaynayaa inay ahaayeen qodobo aad ka dhigatay oo waxyaabo badan kaa anfacay. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay, subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga.